maasadan magaceedu waxa la yiraahdaa idil maasadan waxa aan ka matalay dareenka kalgacayl dhaba iyo jacayl qarweyn oo dhexyeelo qoyska mid qoysaska Soomaalida aniga oo hibeeyay isla markaana hadiyad uga dhigay lamaanaha kala ah Cabdi Fataax oo Muuse Cumar iyo Idil Xiis Axmed maasadan waxay oranaysaa sidan adduunka iyo koonka Ilaah badiyay ku oomay naflaha islaamka ah korkeeda arlada mushaaxay iyo haweenka dalkeena oo idil baan adiga ka ishaartay idileeyo alla nacala fiigu ka dirayo adaa oori ahaade dhabo adaa ubadi xambaarashano quruxda adiga astaan u ah oo dadnimo ehel baad wadaagtaano adaa udugii miskiga matalo sidii u bixii udgoon badano adaa asturnaanta laasimayo ilays baxayaad naftayda u too adaa unugyada jirkayga dhammaan jacayl ku abuuray awood badano adaa waajibkaaga wanaagu guto adaa samihiyo asxaanta falo tolkaaga adaa u uurnugulo danyarta adiga u samafalo oo adaa u arxamo karaankaago indhihii ku arkaa ayaan badano shannaan ka helaa agtaada ifkoo allaan mahadshaa markaan ku arkee nuxuusta ishooda oo muntihiyo ilaah ka ilaali urugada markaan ku bartaan ku aaminayo ogaada inaan ayaan badano ishaartay akhlaaqda dhaqankaago naftaydana kugu ammaaneeyo qalbiga idilay agtaada dhigo afkaygu ma gaba ammaantaade dhibaatada aadamuhu la ordiyo nuxuusta ishooda oo muntihiyo ilaah ka ilaali urugada markaan ku helay arwaaxdu degto ayaama ku dhaafay asaageeyo allaan mahadshaa markaan ku arkay dhibaatada aadamuhu la ordiyo nuxuusta ishooda oo muntihiyo ilaah ka ilaali urugada ubadka dhashayba ayaan badano adiga ka raacay ababsiga oo indhaha eegmadooda waa u dawo kuwii ifka aayatiin ku degee jannada ku xadreeya aakhire ee kuwii aflixee aqoonta bartee dadkana anfacaan ilaah ka baryee dhibaatada aadamuhu la ordiyo nuxuusta ishooda oo muntihiyo ilaah ka ilaali urugada